kusoo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada nagala socda Som TV Soomaali xafiiskiisa magaalada Muqdisho haddii ay tahay markii ku horeysay aadna soo booqatay subscribe ta inoo sabaysi aynu ku dhaafin wararka iyo warbixinada halkan aan idinku baakino haddii hore aad noola joogteegna waa ku mahadsan tahay dibadda waxaynu ku eegaynaa dagaal qaraar oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo dhaxeeyay macawisleyda beelweynta Xawaadle iyo ciidanka dawladda federaalka dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa lagu soo waramayaa labada dhinac bayna halkaasi ay ku dhaxmartay dagaalkan ayaa yimid kadib markii nin rayid ah ay xabad ay ku dhufteen sida la sheegay ciidanka dawladda federaalka arrintaas oo markii dambe isku bedeshay in ciidanka dawladda federaalka iyo macawisleyda ay foodeystaan macawisleyda ee beesha Xawaadle ee gobolka Hiiraan ayaa waxay u jeediyeen ciidanka dawladda federaalka in ay joojiyaan dadka rayidka ah waxyeeleyntooda arrintaas oo ay ka dhiga adeegeen ciidanka dawladda federaalka ayaa markii dambe waxa la sheegay in ninkaasi rayidka ah ay xabad ay ku dhufteen sidana dagaalka uu ku bilowday hoobiyaal ayaa labada dhinacba isku adeegsadeen iyadoo sidoo kale dagaalkaasi uu saacado u socday iyadoo aan la kala dhaxgelin ayaa labada ciidan macawisleyda iyo ciidanka dawladda federaalka waxay noqotay in dagaalkii uu istaago ciidanka dawladda federaalka ayaa la faahantooda wararka aynu helayno waxay sheegayaan in laba garab ay kala noqdeen intii ku abtirsanaysay dhinacan macawisleyda ee beesha Xawaadle ayaa markii dambe waxaa la sheegay ay la safteen macawisleyda oo ciidanka ay ka soo baxeen iyadoo dhinaca kalena macawisley kale oo iyana ka soo jeeda dhinaca Ceelbuur oo ku sugnaa Maxaas iyana ay dagaalka ku soo biireen taasoo dagaalka markii dambe aad ay u adkaysay saacado fara badan dagaalkaasi uu socday dadku waa yaryahay niyo dadku hubka ku yaryahay wariya afar xabaana adiga afar xabaana maalinta adiga inkastoo hadda xabadaana ka soconin Maxaas haddana colaadaas ayaa weli ka taagan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan macawisleyda beesha Xawaadle ayaa badankoodba waxay tageen Maxaas kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud halkaas habeen uu ku hoyday sidoo kalena Cali Jeyte Cismaan oo beesha Xawaadle ay u caleema saartay madaxweynaha Hiiraan State asaguna kulan uu kula qaatay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan taasoo macawisleyda uga badnayd ay noqotay in halkaasi ay tagaan iyadoo arrintaasi wixii ka dambeeyayba macawisleyda Maxaas aan ka tagin macawisleydan kale ee iyana murasada ee ka yimid dhinaca Ceelbuur kadib markii Ceelbuur laga soo baxay iyana ay yimaadeen Maxaas ayaa labada dhinacba waxay ahaayeen kuwa isku dhex jiray laakiin markii dagaalkan uu dhacay labada dhinacba ay kala garab noqdeen rasaastina ay isku adeegsadeen madaafiicda iyo rasaasta labada dhinac ay isku adeegsadeen ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa waxyeello xooggan dadka rayidka ay soo gaartay xaaladaas ayaa ka jirta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyadoo ilaa iyo hadda labada dhinacba aan la kala dhaxgelin hase yeeshee ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiishooda qaar ka mid ah oo aynu la hadalnay waxay noo sheegeen in arrintan la kala dhaxgeli doono nabadgelyana lagu dhamayn doono isku dhaca labada dhinac ayaa haddaba waxaa laga muujiyay walaac xooggan iyadoo hadafka guud uu ahaa la dagaalanka shabaab in dhinacyadii u taagnaa la dagaalanka shabaab ayagu ay xabadda isla dhacaan arrintaas ay noqonayso mid walaaceed leh waa ku mahadsantihiin daawashada warka xigeenta aynu ku wada kulmayno amaana Allah